munaasabadan qadada ahayd oo mid ka mid ah beelaha dega Puntland ay ku caanashubtay Suldaan Maxamuud Colaad Diiriye waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo kan gobolka Mudug iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka magaalada Gaalkacyo. Suldaan Cabdisalaam ayaa isagoo ugu horeyn la dardaarmay isimka cusub ee ku soo biiray Puntland inaan munaasabadan ka soo qayb galo lagu caleema saarayo Suldaan Maxamuud. marka dadkan qofkii dhaqis yiraahda ka tira war wax iska daaba nabar baa ka damqanaya khaasa ka tiraahdo war salaada tuko nabar baa ka damqanaya ka istiraado war dhiigga muslimka iska daa nabar baa ka damqanaya wariya suldaanka raba inaan la hadlo cali wiida ka tiraado war magta iska bixi nabar khaasa ka damqanaya dadku nabaray leeyihiin marka inaad ogaato oo ku dul qaadato yaa lagaaga rabaa oo midnimadooda ilaaliso. qaar ka mid ah waxgaradkii beesha madax dhaqameedka dooratay iyo iyaguna soo dhaweeyay suldaanka cusub ee maanta ay doorteen. waxa mahad labaad noo runtii in aanu aaminsanahay inaan waxba loo diidanin laakiin anagu aanu seexanay dhibaato qof islaam ah isku samayso adiga waxa dhibaato kuugu filan walaalkaayo aad xaqidid waxa weeye gobolka uu mas'uul buu naga yahay madaxweynihii gobolka Gaalkacyo weeye waxa anaga naga maqan inuu raadiyo asaga xaq loogu leeyahay waxa weeye suldaan waa jir waligi alihi kii horeeyna noqon mayo kii u dambeeyana ma noqon doono insha Allah anaguna waxa weeyaan waa ka soo qayb galnay waxaan ugu duceynaynaa hawshii culayska uu qabtay ilaahay inuu u fududeeyo. gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa la dardaarmay isimka cusub ee dooratay mid ka mid ah beelaha Puntland maslaxadda iyo khayrka inaynu dhamaanteen kula garab istaagno saynu kula shaqayn lahayn saynu maanta damaashaadkiisa iyo calaamasaarkiisa iyo farxadiisa isugu nimid mar walba inaynu u karaamayno. ugu dambeyntii Suldaan Maxamuud Colaad Diiriye oo isagu loo doortay inuu ka mid noqdo madax dhaqameedka iyo dareenkiisa cabiray fadhigayayna waxna la ku siin waayay inaan dhaqaaqno ayay dantu nagu qasabtay waxaan arki doontaan kuwa badan oo iga dambeeya mid waa leeyahay laftiga iyagu meesha in la ku tilmaamayo idinkan waxba soo doonan haddaba waxaan leenahay haddaana wax soo doonan jirin gudoomiyaha gobolka salaadiinta nabadoonnada kulli waxaan leenahay maanta waxbaan doonaynaaye wax nala qabta Cabdirasaaq Cali Cabdi Silfar Home Cable TV Gaalkacyo.